الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaashiin Jawhar Xuseen halkaad nagala socotaan waa channelkeena Jawhar Xuseen inoo mushaw harjana ina caafimaad qabtaan sida aniga aanu caafimaad qabo. Allah subhanahu wa ta'ala caafimaadka inoo ziyaadiyo qof walba muraadkiisa oo macsalehna siiyo. Allahumma aamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ayamahan waxaan u socdo qisooyinka fadliga dhikriga uu leeyahay. waxaan rajaynaa insha allah ina dhammaanteena aan dhikriga wax badan aan ka fahmi doono, dhammaanteena dhikriga wehel iyo walaal iyo wax walba aan ka dhiga doono, dhammaanteena aan heli doono insha allah biidni illah deganaan xasilooni wax walbo ahaanti lacag ubad wanaagsan zawj saalix zawjad saalixad biidni illah waaxid al-axad. waxaan idin codsanaa in youtube-keena kale subscribe anoo saartaan page-keena oo Jawhar Xuseen ku qoranne follow ilaaga aana soo dhahdaan biidni illaahi alkariim. wax badan waa iska faa'iidi doonaa hadduu rabbi subxaana wa tacaala uu raali ka noqdo. qisadan maanta maxay ku saabsan tahay xawqalada, yacni subxaan allah laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim. bal gabadhan maxay ka sheekeynaysaa, bal gabadhan maxay ku heshay, bal gabadhan maxay heshay, maxay dareentay, nolosheeda say ahayd, macariiriyay ahayd, maxay ku nooleed. yacni waa qiso cajiib ah, yacni oo subxaan allah aad aa ugu farxay soo gudbinteeda iyo sida anigaba aa idinkugu soo gudbinayo. laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim. qofna xeel ma lahan, awoodna ma lahan ilaa rabbi subxaana wa tacaala mooye. laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim. calaa fikra buuray gilgishaa lahay, buur weyn badan saas buurta u gilgilatay. subxaan allah. haddaba gabadhan nolosheeda maxay kusoo biirisay, maxayse ka dulqaaday, maxaa kurboy ka dulqaaday, maxay wanaaguni kusoo biirisay. subxaan allah. haddaba qisadan dhegayso bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda. gabadhan oo ah digtoorad weyn oo shaatirad ah oo digtoorad magaalada degneed laga yaqaano ayaa qisadan ka sheekeynayso. waxay dhahday caaciladeena ama familkeena adeeraday wixii dhalay eedaday waxay dhashay waalas agdegan yahay dhahday markay ugu yar tahay waxaan ka koobannahay dhahday 40 gabdhaa ka koobannahay. wixii adeer dhalay, wixii eeda dhashay, wixii aabahay dhalay waa la badan yahay dhahday. familka aad loo badan yahay. familka yani waa famil mushaddid ma taqaaniin famil oo waxaa jira oo adag. famil waxaa jiro gabdhaha u ogoleen inay wax bartaan, famil aan u ogoleen gabdhaha inay meel aadaan, famil yani famil noocaas anaga Soomaali waan ugu buuxan. haddaba familigaas yani aabahoo kale qofka u weynaa manyal adag wuxuu leeyahay mamnuuc way gabar inay banaanka baxdo, gabar inay kaligeed iskool aado, gabar inay qosasho, gabar in walaalkeeda saaxiibkiisa markay imaad soo baxdo, gabar Allahu musta'aan yani gabar almuhiim waa dareemi kartiin. marka familkaasaa ka soo jeediyay dhahday waa badannahay. waxaa naloo ogol yahay dhahday marka hore quraanka inaan barano, marka labaadna dugsiga hoose inaan khalaas ku dayno. familkan waxay aaminsan yihiin gabar maxay qabanaysaa, gabar maxay baranaysaa. waxay dhahday subxaan allah iskoolkii waxaa ka murugaysanahay dhahday guriga aan fariisanayo, jaamacad aan dhiganaynin, high school aan galaynin, intiyaa murug iyo fikir iyo walbahaar igu haysay dhahday. marka subxaan allah maadaama aan ogahay dhahday dhikriga iyo fadligiisa waxaan bilaabay dhahday in aan nafteyda ka dhaadhiciyo, inaan nafteyda u sheego in allahumma musta'aan aan badiyo laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim. marka waxay dhahday allah musta'aan waa dareemi kartiinay dhahday marka ugu horeyso aad bilaabaysid waxay kugu noqonaysaa in ay kugu adkaato, yani wax yaraa samaynaysaa waa joojinaysaa, yani xoogaa inaa la qabsatid waqtiga qaadanaysaa. marka waxay leedahay almuhim waxay sidaas ahaataba waan la qabsaday dhahday. waxaan bilaabay in aan sameeyo maalintii 500 kun 5,000 ilaa inta aboodo, yani intaasaa geynaa ilaa 5,000 500 kun 2,000 intaas waa wadaay dhahday. subxaan allah. marka waxay dhahday aabahaygu waa aqaanaa gabdhihii dhan markay kusoo qaadaan aaba miyaha jaamacada rabnaa
sheekadaas mar dambe ha igu soo qaadan oo leeya weylag mar dambe haddaa igu soo qaadid wuxuu kugu dhac adiga isku keenay waa ku qasban hal mar markay soo qaado lagu aamusiyey mar dambe ma soo qaadaysay dhahday adeeryaashay kadaalik eedooyinkayga sidoo kale familka haddan familkana isga guursadeen waa ad adeeg meesha ugu dambeysay dhahday hadda meesha ugu dambeysay ad adeeg waxay dhahday anigii ma ku soo qaadinay dhahday waxaan iska watay laa xawla walaa quwata ilaa billah waxay dhahday laa xawla walaa quwata ilaa billah dugsi sare ku dhameeyay dhahday dugsi sare markaa dhameeyay waxaan leeyahay aniga waxay dhahday gabdhaha kale waa ka dubanahay gabdhihii kale way aamuseen sida waalidka rabaanay u yeelanay dhahday laakiin aniga nolosheedu waxaan rabaa inaan meel sare gaaro meel ka soo baxo waxay dhahday allah mustacaan laa xawla walaa quwata ilaa billah waa wadaya dhahday waan waday dugsi sare waan dhameeyay markaan alxamdulillah dugsi sare waxaan galay dhahday kaalinta oo koobaad galay waan waday dhahday waan waday jaamacad inaan dhigto aan gala aad u jeclaystay waayna adag tahay familkayga haddii aan ku soo qaado jaamacadaan rabaa wixii ugu dhacnaa isku keenay dhahday laakiin ilaahay subxaanahu watacaala awood badanaha aan taladeeda u dhiibtay dhahday ilaahay subxaanahu watacaala taladeeda aan saartay dhahday cabsidiyo dhan horta waa layga qaaday dhahday alxamdulilah subxaan allah aabahayga u tagay dhahday aabahayga markaa u tagay waxaan dhahay aaba miyaha jaamacad waliba waxay dhahday jaamacadda qaybta aniga aan rabo magaalada deganahay ma ku taalo magaalo kale ku taalaa magaalo kale ay ku taalaa waxaan dhahay dhahday aabo aniga waxaan rabaa inaan jaamacad bilaabo way soo fiiri wuxuu ugu dhahay dhahday insha allah khair waxay rajo isiisay dhahday insha allah khair yani khairay noqonaysaa rajo isiisay aabahaagu maanta kugu casabin ama kugu xanaaqin kugu caroonin waa dhahday jaamacadaan rabaa wixii macquula ila noqon weysay dhahday subxaan allah waxaan raacday dhahday in aabay aan kusoo noqday aabay anika aabo miyaha ani kaalinta koobaad maadaama aan galay iskuulkayga waxaan rabaa inaan magaalada jaamacad aan ka dhigto aan jaamacad aado markaas wuxuu igu yiri dhahday okay waan kasoo fikirayaa iga warsug waxay dhahday markii labaad markaan waan kasoo fikiraa oo dhahay anigii waxay dhahday kala joogsi ma lahan la xawla walaa quwwata illa billahi al-ali al-azim kala joogsi la'aan waa wadaa dhahday talo muxuu ku dhihi doonaa markii xoogaa kasoo wareegsaday waa ku noqday dhahday aaba miyaha ma kasoo fikirtay maxaa ku fikirtay maxaa is dhahday markaas wuxuu dhahay okay jaamacad meel dheer ma aadaysid markaas waxaan dhahay insha Allah waa yahay iskoolkii aan aaday dhahday iskoolkii markaan aaday waan wareystay marka qaybta aniga aan raba inaan barto magaalada dhan ku taalo sida idin sheegay dhahday magaalada dhan meesha aad deganahay ma ku taalo magaalo kale ku taalo waxa aan raba inaan barto magaalada deganahay jaamacad way ku taalaa marka waxay dhahday allah mustacaan aabahaygii soo fiir markuu i dhahay waan tagay jaamacad waa ogahay waxaan raba inay meeshaan oolin waa soo fiirsada waxaa lay dhahay meesha ma taalo magaaladaasaa laga helaa waa lagu xabilaa magaaladan aan ka baastayn waa lagu xabilaa waa kaasaa aabahaygaa kusoo noqday dhahday intaas waa aabahay waa iraaca asla ama wiil walaalkay oo iraacsiina keligaa bax ma jirtay dhahday abadan ma jirto familka sidaa idin sheegay waa famil aad iyo aad u adag waxay dhahday allah mustacaan waa soo baxay dhahday aabahay waa u sheegay siday wax u jiraan markaasuu wuxuu yiri aniga maxay dhahdaasi ani waa ku dhalay waa ku kori akhlaaqa kugu kori marka waxaan rabaa magaaladaas si adab leh inaad ku joogtid magaaladaas inaad saas ka noqotid waxa adi barashadiisa aa u baxdayna inaad si quman oo qurux badan aa usoo baratid oo si quman oo qurux badan aa usoo noqotid waa amini weeye dhahday aabahay oo hadalkan ku hadlaay wallaahi waa amini waaye dhahday waan amini waaye waxay dhahday alxamdulilah magaaladii oo ila imaaday dhahday waa imaaday wuu iga soo tagay meel uu iga soo hubsaday fa alxamdulilah daraasadeedu waxay dhahday ilaahay subxaanahu watacaala waa ii fududeeyey oo maanta sidaa ii jeedinba waxaan ahay dhahday digtoorad oo weyn oo waxay leedahay allah mustacaan hamigayga ilaahay subxaanahu watacaala wuu ii sameeyey waa aabahaygii oo sidaas ahaa weliba wuu igu faanaaya dhahday bal fiiri gabadhayda uu leeyahay digtoorada fulaan digtooraha heblaayo uu leeyahay dhahday wallaahi waxay dhahday nolol waxay ku jirtaa dikriga ilaahay subxaanahu watacaala farxad waxay ku jirtaa dhahday dikriga ilaahay subxaanahu watacaala hamigaago ilaahay subxaanahu watacaala kuu furi waxay ku jirtaa dikriga ilaahay subxaanahu watacaala nolosha dhabta ah waa dikriga ilaahay subxaanahu watacaala lisaankaaga ama carabkaaga aa bartida dhahday runtii anaga wax walba mustaxiila ka dhignaa ama wax fog aan ka dhignaa wax fog ma jirtay dhahday wax fog ma jirto weligay kuma fikirayna dhahday familkayga
weliba adeeryaashay iyo markay dhahaan gabar ma meeshaas u jiraysaa aabbahay waxay dhahday ileen asaa qofka ugu weyn familka ah asaa afka ugu istaagayay dhahday subxaan allah gabareedina wax barata ay rabtaa qalas waa loo yeelaa macquula ila noqon weysay dhahday waa wax aan dhici karinaa islaha laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waa ku quwad badanoo wax walba awoodeeda uu leeyahay annaga xeel ma lihin awoodna ma lihin laakiin rabbi subxaana wa tacaala ay awooddaas iyo wax walba inuu qalbiga insaanka u gedgediyo u sugnaatay dhahda aabbahaygina qalbigiisa siduu ahaa maanta iiga dhigay qalbi wax walbo garab ila istaagan runtii dikriga ilaahay waa quwad waa xeel waa wanaag waa sharaf waa ixtiraam waa waxay leedahay allahuma mustacaan waa riyo rimowday riyadaadu kuu rimoobayso waxay leedahay dikriga ilaahay subxaana wa tacaala wax walba kuugu furfurmaayo hal calayki allahuma mustacaan deen waa inaad dikriga ilaahay subxaana wa tacaala abadisaa hal calayk xisiin murugo i dhibaato ma dareemaysaa calayka dikriga ilaahay subxaana wa tacaala inaad dikriga ilaahay subxaana wa tacaala aabadaysid ma tahay guurdoon dikriga ilaahay subxaana wa tacaala badi ninka ma kugu xun yahay dikriga ilaahay subxaana wa tacaala badi naagta ma kugu xun tahay dikriga ilaahay subxaana wa tacaala badi nolosha ciriiri ma kugu tahay dikriga ilaahay subxaana wa tacaala badi ma tahay qof hami leh hami weyn leh haddana ay ku adag tahay sida uu ku gaari lahaa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala badi farxad ma rabtaa in kheyrkaaga dhan hadday meeshaan soo istaagaan inaa qof xuntaha ay kula soo istaagaan inta inaysan kaa gelin inta inaysan kaaga dhaadhicin ma rabtaa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala bari kalsooni naftaada inaad u qaadid quwad inaad naftaada aad siisid ma rabtaa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala badi wallaahi dikriga xasiloon lagu dareemaa wallaahi dikriga nolol lagu helaa wallaahi dikriga farxad lagu helaa wallaahi dikriga yaa waxaa lagu helaa waxyaabo badanoo wanaagsan aan idinka dabageeye ani aa idinla helaayo aa idinla hadlaayo marwey inaa sheego laakiin fadro xoogaa marwaa noqday waxaa ku helay zawj wanaag badan maasha allah tabaaraka araxmaan ilaahay subxaana wa tacaala ha ii deystee hambalii soo dhahaa ilaahay subxaana wa tacaala abuuraha noo saqiro marka dikriga allah dikriga ilaahay subxaana wa tacaala waa cajiib waxyaabo badan oo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala aan kala kulmayn waxaan rabaa buugayga kitaabkayga aan qori doono inaan kusoo daro hadduu rabbi subxaana wa tacaala u raali ka noqdo oo walaashin jawaar xuseen oo idin lagu soo dhawaada channelkayga subscribe saara asxaabtiin la wadaaga wixii ra'yigiina commentigu noogu reeba like nirgelino tahay like noo saara page-keenana like iyo follow na soo dhaha youtube-keena kalena subscribe noo soo saara kheyr iyo caafimaad iyo barwaaqo idin rajayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu